frontiga haysta meesha in wax laga toosi u baahan waa meeshaas markay toostaa dowlad goboleed toosi karaa siyaasadana saasay mudaan u kala leedahay maasanta cabdiraxmaan aad baad u mahadsantahay maxamed aadan soo dhawo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موليد أدبا وسلام انتهي أديقي HP حلبان عبد الرحمن شكرنا وسلام يا حلبانك أدبو مهسين وقتي ونسيي وحن ويدينا يا أنت بدن أدونك دور الشدو وحن معملو قدي مدح بنان ومدح ذا مركز حلق وهيسا عيسان أودين إني فرقشتان سوماليا waxaan aragnaa madaxweyne kastoo yimaado ama state-ka ha joogo ama federaalka ha joogo meeshu doona ha joogo wuxuu rabaa doorashada inuu asaga maamulo sidee looga saari karaa gacanta awoodda xukunka hayso oo loo heli karaa guddi madax banaan oo wuxoodi ayaga kaliya ay qabsadaan aad baa maasanta maxamed xilbaan soo dhawo وسؤال fiican dadka darsa wadamada faraajilka ama Boston ama colaadaha ka soo baxay doorashada in lagu degdego waxa ka muhiimsan in la sameeyo check and balance hay'adihi sameeylaha oo baarlamaanka awood loo siiyo inuu gudo karo waajibkiisa oo garsoorka awood loo siiyo inuu gudo karo waajibkiisa oo hay'adaha kale oo media warbaahinta ay kamid tahay loo siiyo inay gudo karaan waajibkoodii oo civil society-ga loo siiyo inay wax dheelitiri karaan maxaan saas u leeyahay hadda doorashada madaxweynaha baarlamaanka oo doorto laguma murmo subax markay saas u dhamaato nin walba waa soo dareera assalaamu calaykum midkii laga adkaaday kii haray iyo kulli wala tahniideeya maxaa keenay waa loo jeedaa codkeeda la tirina ilaa marka dawladaha markay colaadaha ka soo baxaanba ilaa ay guuraan oo hay'adaha wax jeegaray kara oo dheelitiri kara oo dabagal ka sameey kara oo garsoor ka sameey kara dadka dad isqabtaan kala saari kara kuwaas fiiri nin aana maxkamadda dastuur u dhisnayn oo guddiga doorashada khilaafka ka yimaada wixii lagu kala xalinayo u dhisnayn oo baarlamaankii awood aan siinaynin oo korjoogto ku sameeyo oo lacag la daba taagan laaluush iyo xilan ku ballan qaadayo waxaan ii marsi oo aanan awood siinaynin warbaahintii madaxa banaaneed iyo civil society-gi oo aanan taladii ka qayb galaynin shacabkii Soomaaliya wuxuu ku leeyahay doorashada guddigan qabsana waa waalid walaalo su'aasha weydiisay waa ilaa magac qofkii weydiiyay waaliday kamid tahay maxamed aadan waalida sideed waxay ku soo dhamaataa afasano raan abawda oo yiraahdo wixii aan soo sameeyay waa ka shalaysanay qalad ay ahaayeen waa markay ka dhamaato waay oo dadka iska celiyaan wixii qalad ay ahaayeen waa tooba keenay safku soo galaa wareega intuu imaanaa wuxuu leeyahay haddana la igu celiyo wixii ka tooba keena annagaana rabaa marka Soomaali haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed inay qayb ka noqdaan waana ku celinaa qof kastoo meeshan ku jiro qof kastoo dhageysanay waajibka ka saaran dalka gudo حال كوكيني سو بنانك هاي إيماني سمجرو. وما سنت عبد الرحمن توبة أبو كربان سينيا توبة سودو. وما سنت موليد وحملنا هنا مخلصان. سوون أكسن. هذا وما سنت هاي جمع مبارك آدم كوستلامة يا HPM هو بسلوك عبد الرحمن آدم كوستلامة أنا أخيرت كل اللي دقيستني السلام عليكم كل يوم آدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قلبت الآن وتاع حدا. توبة دور علي حل السؤال دور علي ولا شيء. هل وين عدالة سمايا dadkii horey baan hal su'aal baan siiyay dadka daba hal su'aal baan siinaya 15 daqiiqo weeyaan xilibaan Cabdiraxmaan hal su'aal weydiiyo adoo raaliya tooba okay teedii ka saadana marka xilibaanka waxaan weydiinaa maadaama aad tahay xilibaan qaran amaanta cawadan aan noo sheegtay inuu soo jirin gudoon tahay maxaa la dhahay baarlamaankan wax jiro oo wuxuu ku keenay maxaan haradaysa oo caaw mayka u haysataa maadaama aad dawladii aan dhihini way jirtaa sida iyago maxaa baarlamaanka aad tiri wax uu yahay ma jirto wixii lagu shubto lagu shubanaa adigu baarlamaanka kamid ahaydna leedahay markan baarlamaankaas waa baarlamaan ay jirin yani aan caradaysa in dawladdu meesha ma jirto macnaha waxaan u fahmay xilligan ma fahamtay Cabdiraxmaan su'aasha tooba maxaa meesha u timay tiri mawlida Cazuma oo imide maya aan ku dhahay وكل سنة يعني معارضة تهاي وحتى المعارضة هاي دولة إنه تاجنا الدستم وحنو شيء جسا إنه يهاي قدام كنين محل واحد جرا وصل أو مركن وحلو دي وشيء جايو باربان كاسيت مركن وحلو شبتلو شونايو لما شتيتنايو هذه كنا كمان تاي يعني حدين الدولة جيرين ماشاس أو حلو كرتون يا بيجرين يعني مثلا العربية ساو ما يقاو هستها ولا الدولة واجهتها الدولة ما جرت وحنا مرينا هذا الكيد وحنا الحين
in la isaariyo ma dawladdu waa jirtaa hay-adana waa jiraan waa nugul yihiin gudoonkana waa jaabka waxaa gashtay laanta fulinta wax hadda cusubna ma aha sidayba soo ahaa jirtayba hadda wax cusub ma aha gudoonka jaabka la gashay jiray hadduu diidana waa la bedeli jiray laanta fulinta Allah u naxariisto barso jawaari la iska bedelay gudoomiyii ku xigayna waa ka soo qaxay madaxtooyada anagoo nala soo degay markii dambana waa heshiiyeen asagii iyo laantii fulinta waa israaceen ayagoo israacsana waqtigii ka dhamaaday ay ka baxeen kan hadda laanta fulinta la haystaa ma hubo inuu la sii hayso doono sababtoo siyaasadda sideedaba Soomaaliya duruufeeda waa isla bedelaan laakiin hadda waxay isla dhaansi garaynayaan laanta fulinta adiga maxaa u haysataa waxaa u haysanaa macalaha baarlamaanka macalaha madaxweynaha macalaha xukuumadda in la saxo dadka Soomaaliyeed ka awood badan adaa ka awood badan dadka Soomaaliyeed ka awood badan baarlamaanka dadka ku dhex jiro hadda aanan jeebka ku jirin laanta fulinta baarlamaan uma shaqeyso baarlamaan fulin uma shaqeeyo waa ka badax banaaya ayada inuu laanta fulinta la xisaabtamo oo kor joogtay la rabaa inta ku jirtay ogol inay saas sameeyaan la abaabulaya gudoonka hadduu diidana asaga naftiisa la xisaabtamaya oo xilka laga ka qaadis lagu soo rogaya siyaasadda sideedaba waxay tahay loolan joogta ah meel iska seexana hadday saas ma yeeshid hadday saas ma u baxdid ma aha waa maasan tahay cabdiraxmaan aad baad maastay xildhibaan maxamed xasan baan siinaya haatan maxamed soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موليد يا حبيب يا HBN والسلام يا بروجرام كنا فرايدي كستأد بو وناكسين حلبان كنا والسلام يا حلبان كسؤال شرب واحد وين ويديو أرتأد بو معسين هاي إنه مركز الصومالي دلوقتي ذا كجرت وكهالله سؤال شان قوة حلبان عبد الرحمن دور قربة وحكسوا عليه سداد كالصومالي ذا نية خير هالشجان كلية تليه واسك قبان كرنا هدانا الصومالي لكن هدي dhacdo ka waran Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu wadanka ku socdo niyad qabka aad qabtin inaan iska qaban karno aan qaban weyno Soomaali xagee ku dameynaysa where do we go from here thank you very much maxamed xildhibaan soo dhawo magaciisa igu celi maxamed xasan horta adiga kaalintaada inaad gudato waa la rabaa kow labo aniga waxaan qiimeynay waxay ahayd xogaalna u ahay aan ku dhex jiraa dadka Soomaaliyeed meeshay soo gaareen iyo hay'adaha noo dhisan hadda dhisan oo saluugsanaha ayaga naftooda macnii gabadhii horena ay si qalad u faantay iyada waa saluugsanahay ma jiraan maha macnii hay'adaha hadda aan saluugsanahay iyo dadka Soomaaliyeed wacigooda meesha joogo iyo awoodaha kala duwan isku dheelitiran bulshada ka imaanaya sheegaya dad waxaa jiro masaariix dalka ku leh oo ma ogtahay waxay yardan gaar noqdo dawladda hor markay dumaysay waxa dhanba dawladda iska lahayd dadku waxay lahaayeen ma jirinba laakiin hadda waxaa jira dadka inay leeyihiin wax badan oo dalka yaal in ayaga iska leeyihiin ayaga keensadeen hadday tahay adeega guud jidadka xataa dadka ayaga dhista iskoolada ayaga sameystay isbitaalada ayaga sameystay bangiyada ayaga sameystay wax dadka iska leh wuxuuda dadkaas way difaacanayaan oo awood ay karti ku difaacdaan waa leeyihiin dalka hadda dal hal xarun looga taliyo ma nidaam federaal ka jiro oo hadii Xasan Sheekh iyo dadka jooga xamar isku qabsadaan gobollo ma joogo oo states dhisana jira marka waxa leeyahay qaabka Soomaaliya maanta ay tahay qaab oo nin inta iska yimaado iska riyooda jabka shakara ma asaga un baa daalay waxa fiicnaaneed inuu waqtiga iska luminay la siiyay ee dadka Soomaaliyeed oo wanaag wax ugu qabto dadka Soomaaliyeed waa soo dhaafeen xilli oo qof jaabka gashanay waxay kala soo dhaafeen inuu nin kaligiis ta taliye oo dalka u dumayeen waa la soo dhaafay oo maamulada dhisan iyo systemka dhisan iyo horumarka ka socdo gobolada ma saameynayo waxa ka dhacaya waxa fiicnaan lahayd qofka asaga inuu aqligiis u soo noqdo oo xilkas noqdo oo dadkana uga tago dhaxal reeb iyo taariikh fiican uga tago asay u rooneed way cabdiraxmaan baad maasan tahay 10 daqiiqo noo dhiman 107 qof ayaa hadda ku jirta qaybta codsiga oo barnaamijka doorashada ay ka qayb gasho 800 qof waxay nagala socotaa dhanka Twitterka dhanka Facebook iyo YouTube kana dad ku dhow 1500 qof ayaa nagala socda 2000 qof in ka badan ba hadda online ah 10 daqiiqo noo dhiman marka waxaan doonaynaa soo gabagabeynaa barnaamijka 10 daqiiqo anagoo aad iyo aad uga mahad celinayna xildhibaan cabdiraxmaan waqtigiisa qaaliga amal soo dhawow waa dhawahay mawlidu waa ku salaam adiga iyo bahda HBN iyo hibo iyo dhamaan kasoo qaybgalayaasha inta golaha fadhida cabdiraxmaan waa salaamaya anigu waxaan rabay inaan weydiiyo su'aasheeda waxa weeyaan cabdiraxmaan wuxuu sheegay cabaar baan dhageysanayay in madaxweynaha saxiixiya iska soo galo
saan wada ognahayna